kulanti wanaagsan dhamaantiin daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Murtiye Maaweelo oo arrimaha fanka iyo xikmadda Soomaalida aan si guud ugu falanqeyno toddobaadba waxaan idin saacidoonaa qof aan isleenahay Soomaalida iyo dadka ku xiran barnaamijkan way xiiseynayaan toddobaadkan waxa marti noo ah oo runtii aan fursad u helay inaanu kulan xog waraysi iyo taariikhda faneed baan ka waraysano Faadumo Cali Jaamac oo ku caan baxday magaca Nkrumah magaalada Muqdisho ay muddo kadib ku soo laabatay oo kula kulanay ku soo dhawaada Faadumo Cali Jaamac Nkrumah aad baan u faraxsanahay kula kulmo magaalada Muqdisho muddo kadib adigoon magaalada ka maqnaa iyo dalka Soomaaliya guud ahaan ugu horreyn waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo magacaaga saddexna waa Faadumo Cali Jaamac magaca Nkrumah bal ii sheeg magaca Nkrumah dhaho aniga waxa la dhahaa Faadumo Cali Jaamac dadka yaqaan oo diibli yaqaanan waxay dhahaan Faadumo Cali Weeshe laakiin Nkrumah waa fanka iyo laakiin ana askariyadaha magacaas ii baxay askariyad baan ahaa askarti gabdhii ugu horeeyay oo calinaas weyn la dhigi jiray baan ahaa marka nin Masri ah oo laga soo bedelay Ghana oo macallin noo ahaa ayaa wuxuu ugu yiri waxaan ahaa dadkan quick learning degdegga wax u barta u fahma sida fudud markaas wuxuu ugu yiri macallinkii darsiga markuu galabtii subaxdii dhig galabtii waa ka bixi jiray markaasuu yiri aniga Ghana ka imid haddii sida aad iskoolkaaga aad jaamacaddii aad wadan lahayd intaad markaad ka baxday secondary-ga waxaad noqon lahayd sida Kwame Nkrumah ayaad waxaad noqon lahayd diblomooyin badan baad lahaan lahayd Ghana gabdhihii marka anagu Afrikaan iskuma aanaa qabin ma ogta waa qosleen namadowgu ku yiri bay ugu yiraahdeen tacliid iyo barato kuba dhig maalintii dambe ayuu soo noqday markuu iridda ka soo galay biyo Nkrumah waa aawe Nkrumah oo himba isla tuur ay isee weydii kara saasi ugu dhagtay ka bacdi waaba ugu dhagtay markii hataa fanka galay askariyad baan ahaa magac kale la ii bixiyo miig la dhaho miigii baa socon waayay Nkrumah ku lagu bartay laga dhig saasaan marka miigna maxay ka dhignayd miig maadaama askaraha diyaaradda duushaan ee miig la dhihi jiray marka maadaama gabadhii ugu horreysay askariyad oo fanka gashay aan ahay baa miig la ii bixiyay marka miigii waa socon weeyay marka Nkrumah la ii yaqaan ka banooniga dheeli jiray sport baan ahaa askarta waxyaalo badan bay samaysaa qof aad famous u ahaan oo fudud marka Nkrumahdi waa ii hirgashay waa gartay askarinimada iyo fanka kibaad ku horeysay askarta ku horeeyay anoo askariyada waxaan ahaa askariyad baan ahaa laakiin abuurkii la abuuray fanaaniinta xoogga dalka ayaa la yiri waa in la abuuraa koox askar ah oo gabdhiyo wiilal bare anagoo 7 gabdhood ah nala keenay iyo wiilashii marka gabdhihii baa anigu aan kow ka noqday sidii baa la igu reebay oo fanka aan galay marka gabdhaha maalayda wada qoray tartan baa jiro wala waana la tartansiyay gabdhaha askar ay la tartansiyay marka anaa tartankii ku helay marka wixii ugu horeed ku tartantay waxaan ku tartamay action waan ku tartamay heesna waan ku tartamay hees ay qaadi jirtay Xalimo Khaliif Magool oo la dhihi jiray Muuniso aqoon la shaydaan afuufa yaa kooraskii ku galay waxaan ahaa dadka markay wax maqlaan qabta marka nimankii iyagoo dhan waxay ahaayeen dad abuur ah marka aan fanka aad u aqoon markay la isfiiriyo gabdhihii aan xoogaa heesa badan ka qaado oo raadiya ka maqlay sida la yirtaa way qaban kartaa heesaas lagu qaato taariikh ahaan goorma wallaahi Umar waad mahadsantahay hooyo laakiin waxa weeye fanaanka iyo xaaska safaaradahaba lama weydiiyo cibri xog kala soo baxsay xog baa soo baxay marka si aad cibrigaygu ogaatid
ama dadweynuhu ogaado waa qofka journalistu markii noo yimaada buu leeyahay goormaa dhalatay goormaa fanka gashay goormaa dhalataa ku xigta fanka waxaan galay 64 baan galay waxaan ku galay markaas kuruud baan ahaa markaas kuruudkaan ka baxay kuruudka markaan ka baxay ayaa la ii qaatay fanka waxaan dhigay dagaalkii waxay 64kii Soomaalida iyo Xabashida marka Itoobiya markaan dagaal leeyahay waxaan galay ruwaayadii ugu horeysay oo aan galay waxaa la dhihi jiray maantii fadhiba waxaa iska lahaa Ismaan Aadan iyo waxaa wada lahaa nin la yiraahdo Cali Gaab oo hadda asaguna mar dhow labadaba waa dhinteen Allah u naxariisto marka laba hees baan ku lahaa labada hees oo qaadana waxaa iska lahaa Ismaan Aadan oo wuxuu ahaa shicbiyaha wanaagsan iyo xooga dalka xamdigaan abuurihii baan ahaa kabacdi markii gabdhaha waa bari ama gabdhaha fanaaniinta markii gabaru ka tagto riwaayadda ay waday gabar kala meeshii ka sii qaada aniga riwaayadaas wax baan ka dhigay laakiin markaan dhigay isla markiiba wax yar ka bacdi waan ka baxay oo Soomaalida waa taqaanaa oo aabahay baa liigu dacweeyay olii gabadhaas ba askar baad u qortay bas inay heesto askar bay ahayd marka aduu anoo riwaayadii ka soo dhigay Xamar iyo Kismaayo iyo Baydhabo markaas Baydhabo ka nimid oo halkaan nimid ayaa aabahay xoogaa ila hadlay aabahayna saaxiibkaygu ah waa jeclaa Allah u naxariisto xir aabo inaad ku doqowdid baan ka baqayaa fanka gaar saasaa uga haray riwaayadii markaasaa waxaa xafiday Habboon Cabdullaahi oo markii hore igula jirtay iyo baxsan oo Hargeysa laga soo helay baa riwaayadii la wareegay markaa waa gartay dad badani marka laga yimaado dadkii fanka hore ama dadka fanka aad ugu dhinto badan marka laga yimaado heestan kuma yaqaanaan adigu aad qaaday shicbiga wanaagsan Habboon iyo idaacadaha tusaalaynta waxay baahiyaan Habboon iyo baxsan labada midna maleen originalka ana iska lahaa ee raadiyaha ka qaban wali fanaaniintii waa joogaan ama waa nool yihiin marka wuxuu ahaa shicbiyahu wanaagsani walaalayaalow wadnahayaga ku yaala walaalayaalow wada jir bay laba gacmood wax ku qaban karaan anis weeshano walaalayaal wada jiraano walaalayaal riwaayaduna waxay ku timid oo ahayd oo heeskuna ku yimid walaalaynta shicibka iyo askarta maadaama aanu ahayn kooxdii askarta ayaa waxaa la walaalaynayay anoo labisan oo dharkii qabaan qaadi jiray askarta shicibka iyo askarta marka saas heesaas ku timid magaca kooxda muxuu dalku ahaa mise horseed markii dama horseed baan markii hore xooga dalka la dhigay kooxda xooga dalka بعدي بهرسد horseed waa xilligii dawladda kacaanka inta ka dambeysay waa gartay heesad waxaa jira aad qaaday xilliyada hore oo guluf daayo guclo orod heesad Suudaan ka qaaday oo kala jirtay ama gami waayena baa leeyahay waa ku jirta gami waayaha waxa iska lahaa nin dhintay oo waa bari ahaa oo heesaha jaaskaaba ninkii abuuray ahaa ayaa iska lahaa oo la dhihi jiray magaciisa waa soo xasuusan doonaa ilaa dadku markuu doqoobo maskaxda tirtiray xog badan lafteed markaad maartay maskaxda gashay waxba kala dhumayaan ninkaas wuxuu lahaa heestaas iyo heestii guuleed hurdow iyo waxaasuu lahaa nageeyo waay heesaan nageeya iska lahaa Umar afku kaama go nageeya iska lahaa gami waay isagaa lahaa hees wuxuu ahaa qoobka ciyaara oo jaasa heesaska jaaskaana ninkii abuuray nageeyu ahaa
sidaa wuxuu bilaabay heeskaa gama waay aan leeyahay wuxuu sameeyey hees kaloo aan qaadi jiray oo la dhihi jiray waan gilgishaa dhan dhan la dhihi jiray wuxuu sameeyey hees kaloo oo la dhihi jiray laba daran daararara isku daran daar buu qaaday yacni nagey waxaa ninkii heesaha casrigaa bilaabay muddo koobanna haddana fanku waa ku jiray soo mahay asagan muddo kooban buu ku jiray muddo kooban buu ku jiray inkastoo hees kale oo sidii laba walaalaana waa qaadi jiray kastoo dadka qaar yidhahdaan cabdi xamdulla shanla ninka la odhan jiray waa dadka qaar yidhahdaan laakiin isagaa qaadi jiray waa garta marka heestaas haddii aan ku noqotay heesta shicbiyaho laxanka yaa saaray laxanka waxaa saaray allahu naxariistee nin la dhihi jiray cabdulqaadir muuse oo kooxdii xoogga aasaasayaashii asaguna ahaa midhahana waxaa iska lahaa ismaan aadan askari oo nin asaguna fanka jecel oo aniga ismaan aadan wuxuu ka mid ahaa nimankii igu soo barbaariyey fanka marka ismaan aadan ilaahay hau naxariisto waan jeclaa asagii cali gaabbaa fanka igu soo barbaariyey marka waxaa laga baqi jiray inaan anigu neersna waan ahaa markii la ii keenay xoogga markii la ii keenay fanka neersna waan ahaa isbitaalkan ka shaqayn jiray marka waxaa laigu encouragement waxaa laigu siin jiray dhiirigelin waxaa laigu siin jiray in fanka si aanan uga bixin baa la qaadqaadi jiray markii hilibkaan jeclaayo ismaan aadan xaaskiisa allaa u naxariista baa maalin kasta duhurka waxay ii kari jirtay garab si aanan uga tegin fanka alloo kuu naxariis alloo kuu naxariis marka waxay ahayd runtii taariikh fiican bay ahayd xagga heesahan ku jirnaa weli aad heesahaad qaado lanno cidda keliya fanku inta badan waa lagu murmaayo dadku laakiin qofkii heesta qaaday markaad la joogto ama lahaa xog sugan baa laga reebi karaa qofka oo dadka soomaalida kale loo gudbin karaa heestan aad ku caanbaxday iyada lafteedu waa heesaha qofka ciyaarka u dhow dhulka meesha doogale heestan dhulka meesha heestaas waxaan ka qaaday festivaalkii Nigeria 77 waxaa iska lahaa sangub baa iska lahaa maca codka asagaa lahaa waxay ahayd heesa aniga runtii taariikhahayga ka mida waxaan tartanka kula galay islaan la dhihi jiray maariya makeeb hadee anugu isma faanin kara laakiin waxaad ka daalacan kartaan youtube-ka ilaa dagaal baa ku jirnay waxaan xasuustaa nin indhala-ah oo la dhihi jiray steve wonder oon isku maranay Nigeria Lagos aniga iyo asaga iyo hibe iyo isku hotel baan deganay oo markii aan ka soo degay masraxa dee fanaaniintu waa isku hiilisaa intii istiqaanba markii horaan waxaan ku iri waa dagaal baan gelayaa Steve marka Steve dhegtiisi waxbaa maqashaa laakiin wax ma arko gacantana dadku uu ka yaqaan markuu taabto markaan ka soo tegay masraxii buu yiri you was great هذا فعلا markaasaa qalbigii ii degay marka isagu ma garsoorayaasha ka mid ahaa maya anagu nala socday maadaama aan isku hotel ahayn isku meel aan ka wada heesaynay intii istaqaanba meel bay gacanta isa sii jirtay marka wuxuu ahaa taageeraha igu ahaa gabadha maariyana maxay tahay maariya makeeba waxay ahayd naag weyn oo reer West Africa ah oo aad looga dambeeya Soomaalidu tartankaas xagee ka gashay kooxdu waa bari annaga waligeen iyo Allaheenba waa bari runta ku sheegaya waligeen meel aan tagnay number 1 ama number 2 baa galay jiray waxaan qaadanay bilad annaga dalka ma lahayn dalka waxa iska lahaa Nigeria lahayd waxa lagu sameeyay black jirka madow festival
black skin festival baa la dhihi jiray waxaan gallay number 1 waxaan ahay 9 qof waxaan wadanay 2 diyaaradood diyaaradii deeqa iyo waxaan waday diyaaradii xooga dalka Soomaaliya markii aan number 1 noqonay baa la yiri waa in lagu soo wareejiyo Afrika lagu soo wareejiyo marka la yiri waxa sida gobolka Soomaali North Hargeysa oo kale iyo xamar oo kale kala ahayn Lagos xamar baan joognay magaalada Hargeysa oo kale oo liya Plateau State nin maayer oo jooga oo xamar yimid oo naga arkay TV-ga inaan joogno number 1 aan galay ayaa wuxuu soo qoray war uu leeyahay aniga ugu hor casuumaya fanaaniinta Soomaalida markuu yiri fanaaniinta Soomaalida casuumaya dawladda ayaga is yaqaan ayaga naga afdheera Afrikada inaan ku wareegnay ahayd aakhirka aan aadno Mareykanka markaasaan waxaa la yiri diyaaradaad raacaysaan Umar Artaan noo ahaa madax markaana watay wasiirka Umar Artaan ma diyaarad baad raacaysaan mase basaska marka fanaaniintu waa iska masaakiin waxaan niri dalka inaan baranaan rabnaa basaska raacayna annagoo Plateau State u jirna habeen annagoo sii soconnaa habeenkii labaad waxaan qaadanay 2 bas baan qaaday waa 3 bas ayaa magaalo tuula oo u dhow baan hal bas nooga gadoomay maxamed ciise ku dhintay ninkii baska waday baskii buu geed saaray baskii baa gadoomay waxaa ku dhimatay maxamed ciise oo nawatay oo maareeyay tiyaatarka waa ku dhintay generaalkii waxaa dhintay ninkii 2 diyaaradood noo waday midda yar oo ahaa injineerka waxaa ku dhintay nin la dhihi jiray Abgaal Saciid waxaa ku dhintay wiilkii Cabdullaahi Qarshe adigu 7 kalena waa ku dhaawacay waxayna markii bandhigu dhamaaday bandhigi waa dhamaaday laakiin in baan casuumayo dalxiiskii baan u soconaayo waxaan u soconaa magaalo la yiraahdo kadu Plateau State oo state kala ah ayaan u soconay markaan gadoonay adigu meydkii baan xabaalanay meydkii markaan xabaalanay hada dagaal baan soo aanay ma aanu noqonay xafladii habeenkii maadaama dadkii tikidadii goosteen habeenkii 3aad baan meesha ka dhignay dalkeena soo hadlay waxa la yiri maadaama Plateau State ay tahay state-ka muslimka hawsa qol la yiraahdo degan waa muslim baa la yiraahdo lagu xabaalo dadkii dhintay meeshaas lagu xabaalay dhaawacii baa la soo qaaday oo la keenay Lagos markii dambana Itaaliya la geeyay annaga marka wareegayagii maadaama ninkii madaxdaana dhintay maxay fanaaniintiina 4 naga dhimatay ayaa la yiri dad waxaanu nahay ma wareegi karno yani nama siinayso korshansada nama siinayso tacsibaana gashay sidaa daraadeed ayaan Nigeria waa Lagosna lagu soo celiyay alaabtayda baan guranay diyaaradii yareed ninkii waa ka dhintay dad kale loo soo raadinaya diyaarad weyn baa waxaan la siiyay qoladii Nigeria sidii baan ku soo cidgadnay qoladii kale oo sakaraadkayna waxaa la geeyay Itaaliya annagan waxaa nala keenay xamar waxaan in waa maalintii Soomaaliya oo dhan waxaan aad uga xumayn Allahu naxariistay Cabdullaahi Qarshe ayaa noolaa halka wiil boona lahaa oo dhintay marka annagoo dhan waxaan ahayn dad murugaysan baan ahay markuu nagaga yimid airportka Allahu naxariistay oo dawladda nooga hortimid shicibkiya oo open laga dhigay meeshii dhan qof ka saagalay marka Cabdullaahi Qarshe markuu naga hor yimid Allahu naxariistay ayaan calool xumaanay halkii wiil u lahaa marka intuu oo ilaahay wuxuu yiri ilaahay samir haydi ka sii wax la ilaawi kara ma ahayn anigii adinku waa wada dhalay ilaahay cartan baa liishay wiilka cartan ilaahay samir haydi ka sii marka laga yimaado bandhigaas meeqa bandhigo kale oo caalamiyeed ka qayb gashay wadamada kale aad u tagtay waxaan ka wax la sheegi karo ma adduunka oo dhan baan Russia tagnay German baan tagnay
waxaan tagnay yurub itaaliya africa oo dhan baan marnay adduunka meel noo dhiman waxay ahayd dowladdaas markaa kacaanku waxay aad u daryeeli jirtay fanaaniintuna waxa xoog iyo xisaab aan haynaba ayagaan ku beeli jirnay marka ayagaba wayna daryeeleen annaguna ayagaan daryeeli jirnay runtii afkoodaan ku hadli jirnay marka waxay ila tahay qolo kastoo fanka u hiilisana way u hiilin doonaan dowladdu haddii fanka ay tusaale ahaan hadda dowladdu jirto kale haddii fanka iyo ama iman doontaba fanka iyo dadka hal abuurka iyo dadka fanaaniinta haddii xoog la saaro oo awood la saaro miro dhal noocee baa ka imaan kara kulata miro fiican baa ka imaan karta waxaa ka imaan karta dib u heshiisiinta la wado markii fanka la qiimeeyo ayagaa la dhagaysta ayagaa dadka gelin kara ayagaa wax walba samayn kara ayagaa qofka qalbigiisa wixii ku jira ka soo bixin kara dowlad kasta oo soomaaliyeed waxaan ku baraarujin lahaa inay tixgeliyaan fanka iyo suugaanleyda si ay ayagu wax u helaan maxaa jira ayaga la-aantood warkoodu socon mayo dadka fanka aadka waxuga yaqaana gaar ahaan la socday bilowgii ilaa tusaale ahaan lixdamaadkii ilaa markii uu fanka kor u kacay waaberi iyo kooxihii ay asaasmeen waxay rahdaan fankii nakrumo hoos buu u dhacay marka laga hadlayo xawaarihii uu ku socday lixdankii afar iyo lixdankii tusaale ahaan ilaa 70kii intii u dhaxaysay oo riwaayadaha ka qayb qaadatay nima badnayn heesaha soo saartay nima badnayn wallaahi waa runta waa jirtaa maxaa jira gaab baa igu dhacay runtii gaabkaasuna wuxuu ahaa waan guursaday markaan guursaday wax kasta waxaan ka jeclaa fankayga marka hooyo fanka jecel baan ahaa laakiin ilmaad dhashay ilmihii baa ku wareerinaya odagii iqabay allahu naxariista isaguna fanka ma jeclayn wuxuu jeclaa inuu aan ka baxo ama anigana fanka jaceylkaan u galay lacaguma gelin ilaa haddeeraan jeclaa sidaa darteed xoogaa hoos u dhac ayaa ku yimid fankaygii riwaayadii aan qaadi jiray ma qaadin waxaan iska ilaalin jiray si aan laii cayrin oktoobarta iyo julayda yaa tegi jiray laakiin loseso markii burburkii dalka ayaan dib u soo nooleeyey odagii markaan kala tagnay baan meeshaydii ka soo bila ilmihii ii koreen waa gartay cumar xasan rooraaye oo kooxdii xoogga dalkan aad isku ahaan jirteen hees baa jirtay aad wada qaada naftan kula hadlayse oo dhahdo cumar rooraaye aniga iyo wuxuu ahaa atoorii xoogu ahaa ana atariijadii xooggaan ahay marka riwaayad kasta oo la dhigo asagaa atooro ka ahaa ana atariijan ka ahaan jira marka saasaa heesayagu iskugu badeen dhowr riwaayadoodna ilaa 8 riwaayadood asaga iyo faarax guuleed isaguna atooro kalu ahaa oo dhintay laakiin cumar waa nool yahay waxaa leeyahay cumar amisti weli waa ikanaa cumarow aad baan u jeclaa inaan arko cumar hargeysa jooga hadda heesa badan baan isla qaadnay cumar inkastoo heeskaas uu ahaa hees la jecelyahay naftaan kula hadlayse laakiin aniga cumar ilaa 100 hees waa isla qaadnay 9 riwaayadood oo midiiba aan ku lahayn 12 baan isla qaadnay marka wuxuu ahaa laakiin heesa wadani u badan miya wadani iyo jacaylba hees aan isla qaadno ahaa dumar waxa asagu u leeyahay dumar waxa u fiicnay tii duudi nabiga anaa leeyahay waa idin daryeelo idin daadahayno dusha idinku qaadne heesa badan baan wada qaadnay faarax guuleed isagaa fankiisa xagee ku dambeeyey markii kooxda ka timid faarax allah u naxariisto niyow haddaan ku iraahdo 20 baa jira hadda waa dadku ay rumaysanayaan maxaa jira wax yaqaanba ma leh dadkii yaqaan waa dhammaaday dadkii yaqaani oon isla soo marnay riwaayadaha iyo sheekooyinka iyo taariikhda runtii waa socdeen ilaahay ha u naxariisteen faarax guuleed riwaayado badan baan isla dhignay riwaayada la dhihi jira biif baaf iyo
riwaayad kala haab la dhihi jiray iyo riwaayada badan baa isla dhignay laakiin wuu dhintay inkastoo aan iyo cumar isku badnayn ninka ii labeeya wuxuu ahaa faarax guuleed kooxdu waa beri ma soo gudbay isagu mise waa soo gudbay kulli iyagoo waa beryahay dhin marka waa beri oo ka dhalatay kooxdii xoogga dalka iyo labadii idaacadood raadiyo Hargeysa iyo raadiyo Muqdisho markii la isku daray dad la reebay ma jirtaayo ku soo bixi waayay inay waa beri maya dad waxay xulkii mar celebrity way ahayn markii dambana dad loo dhawaan karmay qofku looma dhawaan karo qofku waa beri markuu yimaado markuu kooxaha kala ka soo heeso ayuu dagaal wuxuu u gali jiray iyo course si waa beri ku noqdo waa beri waxay ahayn kooxda hooyada fanka ayaa loo bixiyay hooyada fankay ahayd marka sidaad ogtahayna fanku jaranjar uu leeyahay waa sida askartoo kale askartu siday korneyl iyo generaal iyo gaashaanlo u leedahay iyo maxay ahayd digle iyo isbatoore ayaa fankuna u leeyahay laakiin markaa qofku yimaado waa beri ayuu fanaan international ah uu noqdo ahaa kooxdiini marka kooxdii xoogga dalka aan weli rabo inaan ka hadlo dadkii ugu caansanaayad is leedahay adiga qiimayntaada markay noqoto tusaale ahaan dad badan baa ku jiray oo cismaan askari laa ilaaha ila allah muxamad rasuul cismaan askari maxamed cali kaariye meecaad miigane dhagjar yuusuf aadan raggii maanaa tirin kara raggii rag ahaa runtii baa ku jiray kooxda gabdhana saafi ducaale iyo saafi ducaala ku jirtay khadiijo foodey baa ka mid ahayd labadooda askar ahaa iyo aniga maxamuud tukaale laftiisa ku jiray maxamuud tukaale mu'alifkayagii hablayow buu ahay anigu asayaashii hablayow soo ma ahay halkii qamar ay ku jirtay inaad ku jirtay anaa markii hore waxaan ahayn riwaayadda waxaa maalgelinteedana iska lahaa riwaayadaha kale dawladdaa maalgelin jirtay hablayahow riwaayadaha kale dawladda laakiin hablayahow hadmaad guursan doontaan aniga iyo hibo iyo maryam mursal ayaa maalgeliyayaasha ahaa maxaa jira ninkuna markii ugu horreysay oo u riwaayad dhigu ahaa annagana qola aan islahayn adinkaa ka yarir laakiin dadku waas wada leekaa baan tartan kula jira oo riwaayaddu waxay ahayd ii dhehdeeda waxay ahayd wixii cusub caalamkaa jecel oo hablaha cusub caashaqaa jecel waxaa yidhi allahu naxariistee nin la dhihi jiray allahu naxariistee cawke waxaan inkastoo saaxiibo layahay haddana saanqaadka fanka marka tartan yar baa jiray riwaayado waxaa jira badan oo markaa la dhigay oo maandeeq iyo baxsan iyo hibo naagta la yiraahdo allahu naxariiste magool iyo markaa dhigeen annagana waa fadhinay markaasaan dhahna waay annagaa markaa isku fil baa la wada ahaa laakiin waxaan iska dhigaynay inaan anagu ka hadanahay marka riwaayadda saasay ku markaasaan dhahnay riwaayaddaana si riwaayaddana waxaa ahaa ninka dabaysha u samaynaya wuxuu ahaa jiir buu ahaa cabdikariin jiir buu ahaa midhahana waxaa iska lahaa tukaale maalgelintana saddexda yadaa samaynay marka wax bixsan qarashka ku baxay qarashka ku baxay ilaa wax walba kharash wax kasoo baahan waa marka riwaayad la samaynayna qarashka bangigaa loo furi jiray intay rabaan bay ka qaadan jireen riwaayaddii haddee bil ayay ka socotay tiyaatarka 1 month 30 beri sidii taariikh ahaan riwaayaddaas 76 wax saasay ahayd adoo 65 bay bilaabatay marka riwaayaddii Hargeysa anigu ma aadin waxaan kala socday 77 after 78 marka waxaan ka soo dhignay 30 beri tiyaatarkii ka socotay bay dhawaan tagnay kismaayaan tagnay
markii Hargeysa la aadi lahaa waa markii anigu marka aan guursaday oo aan ka haray riwaayadii aan ka haray markaas marka adigu doorka matashileedaad ku lahayd halkan qamar baad ku jirtaan maqlay anigu waxaa la jiri jiray nin la yiraahdo Fanax aniga Fanax Maryan iyo Beerde Laxshe Hibe iyo Cabdinaasir wiil dhijir saddex baan ahay lixdaas ee meenka marka anigu waxaan la jiri jiray Fanax aniga actually sidaad ay aragtayna ma aqaan qof walba waxbuu ku faanaa anigu actornimadan ku faani jiray marka ninkaas wuxuu ahaa nin aad actor u ah markuu dhintay riwaayadda saasaan uga haray maba guurkaygii ma ahayn waxaan uga haray ninkii aan isla jaan qaadnay oo aan is afnaqaanay markuu yiraahdo tiyaatarka anoo ku jirno kuraastaas iyo waxaas dad fadhiya anaa iskale markuu yiraahdo baa ka heli jiray markuu dhintay aniga marka waxaa riwaayaddaas waa iga dhimatay reer xamarkaan dhigi jiray riwaayadaha reer xamarka ah waxaan la dhigi jiray wiil la dhihi jiray oo hadda ku nool wuxuu ku nool yahay America wuxuu ku nool yahay magaalada Minneapolis riwaayado badan isla dhignay aniga qofka ila dhigaya hadduu riwaayadaha ka tago anna waa ka tagi waqti burburkii Soomaaliya sida uga dhaftay Soomaaliya waxaan ka tagay 91kii January waxay qaaday qolo la yiraahdo Red Cross bishacas iyo safiirka Talyaaniga oo airportka dadkiisa ka raranaya yaan ugu tagay marka iyo oday la dhihi jiray Ismaaciil Geer Allah u naxariisto iyagoo dadkooda raranaya baan safiirkana waa isna qaanay baa aniga fanaanad baan ahay weligeena xabad maqal iyo wax ku dhacday halay qaado markaasuu yiri yaad wadataa laba nin baan watay markaas walaalkay iyo ninaan markaa isguursaday markaasuu yiri labada mid baan ku qaadaya labadaba ma qaadi karo kii qabay walaalkay baa meesha ugu tagay taariikha adduunkay ka batay walaalkay baa ka tagay adeegii waa gacanta ku dhigay wuuna saaray diyaaradii waxaan tagnay Mombasa 15 baraan joognay habeenkiina waxay cuni jiray kaneeco maalintiina qorax ninkii baan maalintii dambe airportka inta aaday Mombasa u tagay asagoo dad raranaya waxay inaad dalkayga igeysid aan ku dhintay iyo meesha kaga qaado kaneeco ay taqaanay ugu cunto halkaas iyo inaan kaneeco dambe halkaan ugu cunin oo iga qaadid oo dalka Italy igeysid wax ka dhaxaynaa mal aniga marka visa Mareykan haystay laakiin visa Talyaani ma haysan sidii wuxuu yiri qof aan ku qaadayo male kaliya ma fuulaysa diyaaradda hataa dharkaaga ma doonan kartid buu yiri ilaa meesha waxaan u tagay saxaab iyo wax diyaaradu baxaysa saayir dharna doonan ma waxna doonan aniga kaliya qaad sidii baa ku fuulay diyaaradda qaahay aan waxaan ku imid Italy waxaan doonayaa riwaayad qaab film ahayd oo qabiyo wan iyo qabiyo tuuba qayb tashidkaay nolosha Soomaalida iyo riwaayadaas maxay ku dartay maxay ka bedeshay waxay ka bedeshay anagu horta waligayaba riwaayadaha dhigayna waa wacyi gelin yaani waxa dhibaatada keenaya inaan dadka dhahno iska jira riwaayada qabiyo wan waxay ahayd naag inta ku ilbaxday meesha odageedii ereysa si aan odayaasha loo eriyo oo aan ilmaha iyo cadaan u guursan oo dadku ay culture-kooda u haystaan ayaa waxaan tusaynay dhibaatada ay leedahay marka aad culture-kaaga dhaqankaaga markaa ka tagtay marka wacyi gelin bay ahayd riwaayadaas waana lagu caado qaatay baan ku leeyahay waxa jirta dadka qaar ilaahda abwaan sangub oo sameeyay
dhibaato ku keentay oo dalkii Kanadiyaankii iyo inay daba galaan oo yiraahdaan dadku way ku kicinayaan iyo arrimo noocaas damaad qayb xoogaal aad ka tahay qaybna maya wallahi horta Canada mise America Canada waa magaalo dal aan la kala lahayn waa dal qofkii kaaga soo horeeyay oo kuugu ag jugleynayna ana iskal waxa waaye wax kulli dadka jooga waa immigrant-iga adaa iga soo horeysay ana waan ku ilbaxa ana waan ku ilbaxa marka dhaqankaaga iyo culture-kaaga adaa iskale adiga waxa lagaaga baahayaa inaad dadkii aad dhaqankii Canada aad wax ka bartid oo wax ka baratid kaagana waad samaysan kartaa wax lagu carqaladeeyo male in lagu siiyo bilad bay ahayd sangub maxaa jira dadkeenii Soomaalida si aanan afka u ilaawin oo ruwaayada inaan leenahay ana u ilaaw oo dhaqanka iyagu u ilaabin ayay ka turjumaysay ruwaayadaha dhignaa aniga barnaamijka waxaan dadaal waxaan galay si ilmuhu ogaadaan inaan dal leenahay inaan fanaaniin leenahay inaan qoraal leenahay inaan raadiyaal iyo TV yaal leenahay marka waxa loogu soo keeyay waxa tay refugee waxa ka timaadee meel Afrika waxba lahayn annagana waxaan tusaynay inaan wax nahay marka sinaba idima saameeyay maya nama saameey waana lagu bogaadin jiray waana lagu bartay ilaa aniga la igu qoray raadiyaha ugu weyn Canada CBC radio aan ka shaqeyn jiray hees baa jirta caan ku tahay oo dib baa loo noqonayaa waa la noqonayaa oo ka hadlaysa wadaniyada iyo in Soomaaliya rajo fiican ka dhalan doonto adiga hadda soo noqday ku dhawaad 28 sano oo burburkii yaa maqnaa ku soo noqday dalkii marka heestaadii iyo aad qaaday sangubna eriyada lahaa iyo maantood xamar joogto dib u soo noqotay ka waran wallahi waxaan dhihi karaa saadaashii awal saadaal bay ahayd laakiin hadda waa rumowday maxaa jira waa soo noqday dalkaagana waxaa la dhahaa dalkaaga wax ka macaan male dabayshaada wax ka macaan male afkaaga lagaaga turjumayn marka waxaan leeyahay daltabi ay haysay daltabiyadii baa iga bacday waxaan doonayaa sawir yar oo kooban inaad iga siiso fanaan dawlad haysta waa sawir noocuu leeyahay fanaan dawlad haysta wuxuu la mid yahay sidaan waa ahaan jirnoo kale qofka fanaankaahu dawlad la'aan ma noolaan karo noloshayadu annaga shicibku waa noolaan kara laakiin annaga fanaaniin haddaanu nahay hirashadayadu waa dawlad la'aan ma noolaan karno hadday hataa ninka ugu liita haysta annaga inaan asagaan nahay dawladdaasaan la jiraynaa maxaa jira annaga noloshayadu waxay ku salaysan tahay dawladda iyo shicbiga waa shicibaan dawlad lahayn oo layska maraayo dawlad la'aan waa dal la'aan aan lahaa ugu dambeyn qorshahaaga fanka muxuu yahay qorshahaygu waxaa weeye haddii alla idmo inaan dadkayga u sameeyaa isku soo jiidaa dib u heshiisiin wacyigelin aan tusaaleeyo maxaa u wanaagsan iyo maxaa u xun inaan tusaaleeyaan rabaa aad baad mahadsantahay waraysigaan la yeelnay Faadimo Cali Jaamac Faadimo Nkrumah intaasi ku dhan yahay intana mid kale oo xiiso la ku kulmi doono nabadgelyo